محمد محمود سيلايو khudbadiisa waxa uu kula hadlay dawladda cusub ee Soomaaliya waxaana markii uu ka hadlayay uu yiri dawladda cusub ee Soomaaliya waxaan jecelahay inay noo dhaxayso cilaaqaad fiican waxaanuna cid walba u sheegaynaa dalka Soomaaliland dawlad uma aha mana xukunto waxaana dawladnimadeedii dib ula soo noqotay sanadkii 1991 maantana waxaan ku hawlanahay horumarinta dalkeena iyo aqoonsiga ka hadla dunida dawladda Soomaaliya iyo dadkeeda waxaanu ka rajaynaynaa inay garwaaqsadaan u tashanay masiirkeennii ummadeed oo aan xaq u leedahay mana jirto cid joogi karta madaxweyne Axmed Siilaaye waxyaabaha kale ku soo qaaday khudbadaasi waxaa ka mid ah aqoonsiga Mareykanku uu siiyay dawladda cusub ee Soomaaliya wuxuuna yiri hadda wax yar ka ilaalo اعترافka Mareykanku siiyay dawladda cusub ee Soomaaliya arrintaasi ma aha wax Soomaaliland khuseeya mana aha wax cusub ee weligeed dawladda Mareykanku way ictiraafsanay Soomaaliya balse imika waxay ogolaadeen maamulka annaguna kama xumin xasanna kuma nihin wixii dadka Soomaalida u kordhaya iyo inay nabadgelyo iyo horumar gaaraan madaxweyne Siilaayo meelaha kale ee uu taabtay waxaa ka mid ah xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka taasi oo uu sheegay in aanay waxba iska bedelin Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka xiriirkii inoo dhaxeeyay waxba iskuma bedelin wada shaqaynteeduna waa sideedii waxaad ila dhugataan fariintan oo wasaaradda arrimaha dibaddu iga soo gaaray US recognition of the government of Somalia will not prevent the US government from engaging in Somaliland, nor prevent us from conducting our programs in Somaliland. We made sure to clarify this with the Somali government before deciding to recognize them. dhawaaqii dhawaanta ka soo yeedhay dawladda Britain ay ugu baaqday muwaadiniinteeda in ay ka baxaan deegaanada Somaliland arrimo khatar ah ay ku sheegtay xagga nabadgelyada awgeed ayuu madaxweynuhu ku soo qaaday khudbadiisa maanta uu ka horjeediyay labada aqal ee baarlamaanka Somaliland oo ka kooban yahay golaha wakiilada iyo golaha guurtida wuxuuna yiri dawladda Ingiriiska waxay noo dhaxeeyay soo jireena oo taariikhi ah waxay naga dhaxeeyay iskaashi heer fiican marayay waxaase ka xumahay dhawaaqa arrimaha dibadda ka soo yeelay ee lagu sheegay in waddanka Soomaaliland ay ka jirto xaalad dibadda dhawaaqaasi muu ahayn mid u qalma kuna habboon xidhiidhka labada waddan waxaanu aragnaa mid lagu degdegay walaalayaal baahida ugu weyn iyo shayga ugu muhiimsan ee qaranka Soomaaliland ku naaloonaya waa aqoonsi iyo ictiraaf uu ka helo dunida madaxweynaha Soomaaliland ugu dambeyntii waxa uu ku soo qaaday oo si aadan shacabka loogu tumay madax banaanida Soomaaliland mudanayaal maanta Soomaaliland loo warwari maayo marxalad badan ayay soo martay oo fulaygu shakiyay sidaan horeba u sheegana 100 sanadood hadday qaadanayso sidaan hore u sheegana 100 sanadood hadday gaarayso qadiyadda madaxbanida Soomaaliland waa muqadas waxaan ku kalsoonahay inaynu si wada jira uga wada gudbi doono caqabad kasta oo